بسم الله الرحمن الرحيم halkani waa sahan academy hoyga barashada aqoonta iyo xirfadaha wali waxaanu ku guda jirnaa course-ka inuu ugu magac darnay MS Windows 10 oo markaasi kamid ah courses-ka aynu ku baranayno Essentials of Computer Applications oo markaasi ah course aynu ku baranayno ama essentialka guud ahaan waa course aynu ku baranayno waxyaabaha ama applications-ka asaasiga ah ee computer-ka markaasi looga baahan yahay waxaan maraynaa lesson 5 oo markaasi ah casharka shanaad casharkana waxaynu kaga hadlaynaa waa deleting temp files ayaan markaasi casharkan uga hadlaynaa waa qaabka markaasi loo delete gareeyo ama loo tirtiro temp files waxa la yiraahdaa waxyaabaha markaasi computerkaaga ku jira ee aan wax u taraynin isla markaana ka qayb qaadanaya waxa la yiraahdo maxay computerkaaga xawaarihiisa hoos u dhigayo ayaa temp files markaasi lagu magacaaba deleting temp files ayaan casharkan uga hadli doonaa waxaan filaa markaa afartii cashar ee ku saabsanayd MS Windows 10 in si fiican loo fahmay hadii ay jiraan su'aalo ku saabsan afartaas casharna waad inoo soo weydiin kartaa WhatsApp nagala soo hadli kartaa ama email ay inoo soo diri kartaa adigoo emailkaaga cinwaan uga dhigayo qaybta aad rabto inaad su'aal inaga weydiiso sidoo kale waxaan filaa talooyinka aan ka jeediyay muuqaaladii hore ee afarta ahaa ee markaa ku saabsanayd Windows 10ka in markaas la qaatay ama hadda kadib la qaadan doono taa ku saabsanayd in cilmigan wax badan laga raadiyo oo aan lagu ekaan cashiradan inaad su'aalo badan ina soo weydiisaan waxay markaasi ina tusaysaa يعني in markaasi aad nala socotaan ayay markaasi daliil u tahay marka taa mar walba waan ku celinaa oo muuqaal walba waan ka sheegaa si markaasi aad ugu dhiirato inaad markaasi su'aal aad na weydiiso waayo qofka waxa ka maqan inuu dadka weydiiyo waa wax markaasi loo baahan yahay hadii wax adiga ka maqan aad isaga aamusto runtii waa markaasi wax aan markaasi habooneen way inaad wax raadiso ayaa laga rabaa hatta macalinka weydii yani isoo weydii dhibaato ma ahan WhatsApp igala soo hadal email ama Telegram intuba waad igala soo hadli kartaa in gudaha kale marka course-ku waa MS Windows gaar ahaan version-kan isticmaalayno waa 10 way ama 2010 lesson 5 oo markaasi casharka shanaadna deleting temp files ayaan markaasi casharkan uga hadlaynaa imika waxaan joognaa shaashada koowaad ee computerka waxaan markaasi casharkii hore aynu ku soo qaadanay sida markaasi folder loo abuuro iconka sida loogu bedelo sida encryption loogu sameeyo encryption waxa uu yahay iyo faa'iidadiisa waan soo sheegnay waxaynu tusaale u soo qaadanay file ama folderkan oo sahan ECA ah waxaan soo sheegnay encryptionka in markaasi faa'iidada uu leeyahay ay tahay hadii markaasi computerkaaga file ama folder uu ku jiro hadii laga xado ama qof kale uu ku shubto in computerkiisa uusan ku shaqeyneynin so marka waad ka qaadi kartaa hadda tusaale hadii aad u fiirsato filekan waxa saaran quful ayaa saaran taa oo cadeynaysa in markaas uu xiran yahay filekan so marka si aad uga qaado waxaad leedahay right click ayaa leedahay oo waxaad maraysaa wadadii markaasi isaga aad u soo martay eed maraysaa oo markii aad soo xiraysay kadib waxaad leedahay properties ayaa taabanaysaa after that waxaad leedahay advanced ayaa taabanaysaa advanced markaad ku dhufato kadib meeshan waxaad arkaysaa encrypted contents to secure data in fig ay saaran tahay figta ayaan ka qaadaynaa kadibna waxaan leenahay okay then waxaan leenahay apply kadibna waxaan leenahay okay ugu dambeyn waxaan ku soo afmeeraynaa okay kadib waxa way waxaan arki karnaa sahan ECA in markaasi laga qaaday wax la yiraahdo maxay qofulkii in laga qaaday hadda computer waliba hadii lagu shubo uu markaasi ku shaqeyn kara markan waxaan aadaynaa sida markaasi loo delete gareeyo temp fileska markaasi aan waxba taraynin si aad markaasi u delete gareyso temp files waxaad markaasi taabanaysaa laba keyboardka hadaad isticmaalayso waxaad taabanaysaa Windows key ama window key ayaa taabanaysaa hadii markaasi aad mouse isticmaalaysana waxaad ku dhufanaysaa buttonkaas ay ku qoran tahay start menu kadibna waxaad meeshan hoose ku qoraysaa run ayaad ku qoraysaa run markaad ku qorto kadib waxa ku soo baxaysa mail markaasi ay ku qoran tahay run waxa waaye computerka culeyskiisa ayaa badan run.ink ayaa markaasi soo baxday kadib marka click ayaa leedahay meeshan marka
ayaa waxaad ku qoraysaa 100% term kadibna 100% kadib waxaad leedahay enter ayaad leedahay enter markaad aado kadib waxaan arkaynaa file ama iyo foldero isugu jira kuwan oo dhan yani waxa weeye fileskan iyo folderadan oo dhan ayaa waxa lagu magacaabaa temp files ayaa markaas lagu magacaabaa si aan markaas u delete gareyno waxaan leenahay control a ileen dhamaan ayaan rabnaa inaan tirno kadib waxaan leenahay right click dan waxaan leenahay delete ayaan markaas dooranaynaa delete markaan doorano kadib wuxuu bilaabaa in fileski markaas uu tiro faylada qaar waxa laga yaabaa inuu diido meeshaas oo markaas do this for all current items ayaad fix saaraysaa dan waxaad leedahay skip ayaad markaas leedahay dhammaan faylasha oo 366 item ah waa temp files waaye kuwa markaas maala yacni ah oo aan waxba tareynin waaye waxa laga yaabaa wax yar in markaas ay ka haraan ku noqo mar kale wax yar inay ka haraan ayaa markaas laga yaabaa 1 iyo 2 ah marka intaasi hadda intooda badan hadda way tirmeen intaasi waxa waaye waa kuwa markaas iska caadi ah waaye laakiin culeyskii hadda waa markaasi waa u baxay marka waxaan filayaa cashirkan si fiican loo fahmay intaan ku soo gabagabeynayna cashirkana intaan ku kulmi doono cashirka xigana waxaan idin kaga tagaynaa sida nabadiino assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh